asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galabnimo khamiis ah bisha agasna waa 25 sanada 2022 qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo iska xaadiriyey jiidda hore kadib booqasho uu ku tegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Booqashadaasi iyo weliba qaabkii loo soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha ayaan soo qaadan doonaa. madaxweyne siciid cabdulaahi danina waxa uu hoos u dhigay maamuuskii loo sameyn lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku wajahan garowe caasimadda puntland, iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Itoobiya ka socda iyo canfartii oo la sheegay inay la kulmeen weeraradii ugu xumaa oo ay ku soo qaadeen ciidamada kooxda TPLF-ta. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta barqanimadii gaadhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen, madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed xagar, qaybaha bulshada iyo weliba xubno ka mid ah labada gole dowladda hirshabelle iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliyaba. wafdiga ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bare waxaa qayb ka ahaa wasiiro uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo weliba horumarinta dhaqaalaha xukuumadda mudane maxamuud cabdiraxmaan bene iyo weliba mas-uuliyiin kale oo garoonka ku sugnaa uu ka mid ah wasiirka gaashaandhigga iyo weliba taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa iyo saraakiil kala duwan ayaa halkaasi ku sugnaa, islamarkaana si ballaaran usoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo safarkii ugu horreeyey ee uu kaga baxo caasimadda soomaaliya ee muqdisho ku gaadhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. waxaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba wafdigiisaba la filayaa inay gaadhaan jiidda hore ee dagaalo ba-an oo ka socda gobolka hiiraan, kuwaasi oo la doonayo in lagu ciribtiro kooxaha argagixisada ee shabaabka oo halkaasi ay kula dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka. goobo fara badan oo ku yaala aagaasina laga xoreeyey oo laga saaray, waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sababaha ugu waaweyn ee uu u tegay beledweyne ay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa ciidamada dowladda iyo weliba dadka shacabka ah ee iska barbar dagaalamaya ee doonaya inay iska dulqaadaan kooxaha si argagixisada ah ee ku sugan aagagaasi. matabaan, maxaas iyo weliba meelo kala duwan ayay kooxaha argagixisada ah ay ku sugnaan jireen, balse haatan waa laga xoreeyey, waxaana weli socda dagaal xoog badan oo halkaasi ka socda, islamarkaana ciidamada dowladda iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshaduba ay ka wada qayb qaadanayaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa u muuqda inuu bilaabay dagaal toos ah oo lala gelayo kooxahaasi argagixisada kadib weerarkii loogu qaaday hotel xayaat ee magaalada muqdisho, kaasi oo ka cadhaysiiyey xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo weliba xasan sheekh maxamuud, waxaana la go-aansaday in kooxahaasi meelahooda loogu tago oo weeraro lagu qaado, islamarkaana guud ahaanba aan la siinin fursad ay kusoo weeraraan xarumaha dowladda iyo weliba goobaha shacabka ee ku yaala caasimadda. arrintaasi oo mar horeba ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxweynuhuba ay ka tashteen, balse tallaabadeeda ay dib u dhigteen, islamarkaana natiijadii ka dhalatay ay arkeen in weerar lagu soo qaaday meel aan ka dheerayn xarunta ay ka degan yihiin magaalada muqdisho ee soomaaliya ee villa soomaaliya, waana hotelka xayaat ee magaalada muqdisho, kaasi oo ku yaala isgoyska kilomitir 4. si kasta oo ay ahaataba ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxa uu bilowday safar dheer oo guud ahaanba uu kooxahaasi argagixisada doonayo in uu kaga xoreeyo qeybaha kala duwan ee waddanka, islamarkaana la isku furo magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka kala xiran ee ku yaala soomaaliya, kuwaas oo inta badan shacabku ay isticmaalaan diyaarado iyo weliba dhanka hawada oo ay u kala gooshaan waddanka intiisa badan. arrintaasi oo guud ahaanba ay keentay in ay kooxaha argagixisada ku sugan yihiin meel walba oo u dhexeysa laba magaalo. haatan anigno garowe, waxaa magaaladaasi gaadhay waa caasimadda puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. dhacdooyinka xiisaha leh ayaa durbe ka dhacay halkaasi, kuwaas oo muujinaya in puntland heerka soo dhaweynta oo dhan ay hoos u dhigtay si buuxda, ama isfahanka labada dhinac heerka uu joogo ay taasina muujinaysaa marka loo eego sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu soo dhaweeyey dhuusamareeb iyo weliba magaalada baydhabo. qaabkii bahdilka u muuqday ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud loogu soo dhaweeyey puntland waxaa ka mid ahaa madaxweyne xasan lama socon xildhibaano ama wasiiro xukuumadda federaalka oo kasoo jeeda puntland, marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda oo kasoo horreeyey safarka madaxweynaha. astaanta qaranka iyo salaan ciidan midna looma saarin qeybta VIP da garoonka diyaaradaha ee garowe laguma soo dhaweyn wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud, lamana fadhiisin oo lama nasin madaxweynaha, waxaana toos loo aaday magaalada iyo weliba xarunta madaxtooyada ee puntland.
markii uu soo degay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadkana uu salaamayay Deni iyo Karaash waxay fuuleen baabuurtooda umana raacin xagga dadka islamarkaana kuma wehelinaynin salaantii koobneed ee uu ka qaadanayay dadka halkaasi ku sugnaa iyo weliba isxog wareysigii garoonka ka dhacay. dad aad u kooban ayaa garoonka la keenay waxaana guud ahaanba ay halkaasi ku salaameen madaxweynaha dadkaasi kooban. intaas kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah oo lagu xalinayo wax tabashada ama guud ahaanba tabashooyinka ay qabaan maamulkaasi Puntland oo ka dhashay doorashadii federaalka ee ka dhacday wadanka 15 May ee sanadkan. waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkaasi Puntland ee Siciid Cabdullaahi Deni uu hogaaminayo ay isku khilaafsanayeen soo magacaabista ra'iisul wasaaraha oo Deni uu doonayay sida xogahan ku helinay in qof ka soo jeeda Puntland ama isaga laftirkiisaba laga dhigo ra'iisul wasaaraha qaranka, balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doorasho kala qaatay oo qof ka soo jeeda Puntland iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu u magacaabay xilkaasi. si kasta oo ay ahaataba waxa uu haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sugan yahay Garowe waxaana uu doonayaa in tabashooyinkaasi uu soo gabagabeeyay maamulka Puntlandna niyadda loo furo oo uu si dhab ah u taageero xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. wixii ka soo kordha iyo weliba waxyaabaha uu halkaasi kula kulmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud barnaamijyadeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa. haatan anigan wararka naga soo gaaraya wadanka Itoobiya dagaal ayaa ka bilowday waqooyiga dalkaasi Itoobiya. kooxda TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya ayaa si toos ah ugu dagaalamaya goobo fara badan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi Itoobiya. meelaha ay dagaalada xooga badan ka socdaan waxaa ka mid ah Abala, xuduudka u dhexeeya Canfarta iyo Tigreega, waxaana halkaasi la sheegay in ciidamo fara badan oo ka socda kooxda TPLF ay maanta weerar culus ku qaadeen ciidamo isugu jira Canfar iyo weliba kuwa dowladda federaalka ee dalka Itoobiya oo ku sugan aaggaasi. waxaana halkaasi ka socda dagaal xoog badan oo la sheegay in uu khasaaro badan dhaliyay, balse lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, iyadoo guud ahaanba isgaarsiinta iyo weliba qalabkii lagu wada xiriirayba uu go'an yahay. wax halkaasi tegayana aanay jirin war rasmi ah oo kasoo baxay labada dhinacna ilaa iyo hadda aanu jirin, dagaalkuna uu weli halkaasi ka soconayo. meelaha kale lagu dagaalamayo waxaa ka mid ah xuduudka u dhexeeya Axmarada iyo Tigreega, deegaamo lagu magacaabo Bala iyo weliba Bisti oo ku yaala galbeedka gobolka Tigreega iyo weliba aagga ay isugu imaadaan labada dhinac ee Axmarada iyo Tigreega. dhinaca kale Bati meel lagu magacaabo oo iyadana ayaa la soo sheegaya inuu dagaal kale ka socdo oo ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ay ku sugan yihiin. fulintan Bati ayaa la sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ka qaadeen kadib markii ay ogaadeen in TPLF ay isku diyaarinayso weerar culus oo ku soo aadan aaggaasi oo ay doonayaan inay soo qaadaan. si kasta oo ay haatan waxay u muuqataa dagaal toos ah inuu ka bilowday waqooyiga dalkaasi Itoobiya, mar kalena ciidamada dowladda iyo weliba kooxda TPLF ay ku dagaalamayaan aaggaasi. waxyaabihii kasoo kordhana barnaamijyadeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto uu taniya kulanti dambe nabadgelyo.